Guddidii ka koobnayd bahda ciyaaraha ee caasimadda Hargeysa ee gacanta ku haysay qaadhaan ururinta magtii loo haystay ciyaaryahan Fatxi Bidhi ayaa saaka ku wareejiyay qoyskii uu ka soo jeeday marxuumkii ku geeriyooday shilka gaadhiga. Munaasabaddan wareejinta magta waxaa goobjoog ka ahaa afhayeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, gudoomiye ku-xigeenka xidhiidhka kubadda cagta, guddidii gacanta ku haysay magta, iyo eheladii qoyskii uu ka geeriyooday marxuumku. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Kamaal Maxamed Yuusuf oo ku hadlayay afka guddidii soo ururisay qaadhaan ururinta magta, waxaanu yidhi halka waxaanu ku fadhinaa guddidii isku xil saartay inay soo ururiso magtii loo haystay ciyaartooygii Fatxi Maxamuud Caydiid Fatxi Bidhi ee 3 bilood ka hor galay shilka gaadhi oo uu ku geeriyooday marxuum Allah u naxariisto. 4 Ramadaan baan bilownay hawshan qaadhaan ururinta. maanta waxa weeyaan waa 18 May waxaan wada fadhinaa oo guddi ahaan aan wada joognaa reerkii uu ka soo jeeday marxuumku Allah u naxariistee. kulli anagu baahan maadaama uu nahay bahda sportska ma jeclin inaanu miiriyaha marino reer hebel, laakiin marka garbahayga lagu arko maadaama reerka marxuumku ka dhintay ay yihiin reer degan caasimadda Hargeysa ahana family ama reer caana, ma jeclin inaanu magaca sheegno oo waxa noo diidaya bahda sportska aan ku guda jirno. laakiin waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo dhalinyarada marxuumkaas ka geeriyooday oo si goobannimo ah oo wanaagsan oo dulnimo ah hawshaasi noogu dhib yareeyay. hawsha haddaanay noo dhib yareeyeenna kumaanan guulaysaneen. faamiligaasi waxaan leenahay allaha idinka siiyo marxuumkii geeriyooday inuu ilaahay u naxariisto, ubadkiisii iyo ooradiisii iyo faamiligiina samir iyo iimaan ilaahay naga wada siiyo ayaanu ilaahay ka baryanaa. intaa ka bacdi 100 halaad oo maga ayaa inankaasi laga doonayay. 100 halaad reerkaasi wanaag fara badan bay noo sameeyeen. 100 halaad isaa la socotaan calaa hal 3 milyan ayaa lagu dhufan jiray. 20 halaad baa laga daayay. 80 halaad ayaa calaa hal waxaan lagu dhuftay 2 milyan. waa goobannimo halkii ugu dambeysay iyo wanaag, maadaama annagu aanu ahayn guddi madax bannaan oo sports Somaliland oo dhan ka kooban. markii ay garabsadeen faamiligaasi inaanu nahay guddi si madax bannaan isku abaabushay ayay hawsha noo dhib yareeyeen. lacagta aanu maanta wareejinaynaa waa $19,000 ayaanu ku wareejinaynaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo odayaasha faamiligaasi. geestoodana waxaa halkaasi ka hadlay qoyskii uu ka soo jeeday marxuumkii geeriyooday. dhalinyarta halkaa fadhida isxilqaamay siday halkaa codka uga baahiyeen iyagu hawshaa isku xil saaray, ilaahay ka abaalmariyo, jasaa'ib fiicanna Allah ka siiyo. siday halkaa ka cadeeyeen ay uga hadleen waxaanu ku heshiinay ramadaanta dhexdeedii magtaa qiimaha ay idin sheegeen oo intii maxkamadda ku xukuntay wixii aanu ka daynay inaanu isxilqaanay aanu ka daynay. tiradii geela 20 baanu ka daynay. intii lagu qiimeeyayna waxaanu ka daynay milyan iyo siyaada waliba 2 milyan baanu ka dhignay. waxay isku noqotay 19 milyan 19 kun oo dollar bay noqotay. 19 kun oo dollar bay noqotay. intaas waa intaanu maanta halkaa u fadhinaa ay gacanta noo gelinayaan. intaasaanu cadaynaynaa haddaanu reerkii nahay. iyagana ilaahay ka jasaaysiiyo wanaag bay qabteen, way isxilqaameen, hor ilaahay bay arrintaasi ku galeen, way noo cadeeyeen wixii ay maalinkan maanta dadka ka gureen ee ay soo qaadeenna intaa anaga dayseen ee anaga doonayseen baanu ku dhamaynay bay halkaa ka yidhaahdeen. annana saasaanu ku aqbalay, saasaanu arrintiina ku dhamaynay. qoraal la ku samaynayna haddii alla ka dhigo. isboortigu ma aha reer, isboortigu waa dhalinyaro Somaliland oo dhan ka kooban weeyaan. sidaa awgeed aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. intii kale caawisana aad bay u mahadsan yihiin. reerka ka gudoomay ee waxna ka daayina aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. bahdan isboortigu waxay isugu jirtaa waa reer Somaliland oo dhan. imika inta de horta diradhaba ugu weyn baan maranayaa diradhaba ilaa 80kii
raggii baasha ciyaari jiray buu ahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa intii isku xilqaantay hawshaa intii waxay idin kala qabatay sida aad quruxda badan leed isku abaabasheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin qolada reerkuna aad iyo aad buu idinla qabtay wax uu ku mahadsan yahay isaguna inta sidaa awgeed waxaan u malaynayaa in reerka lagu wareejiyey imaka wixii loo siday haa nimanka dhalintaa u kacay iyo odayaashii uu ka dhashay reerka marxuumku oo u dheganuglaaday markaa arrintaasi waxay ku timid oon leeyahay dhalinta Soomaaliland meel kastoo ay joogtaaba waa bilow sidaasi yaan loo kala goyn wixii dhibaato ay yimaada inankaasi dhibaatadaasi wuxuu sheegtay isagoo jeelka ku jira ayuu ka soo diray fariintii bay dhalintu qaaday fariintaa wuxuu yidhi mid baa dhinto oo mid baa dhasho oo la aasaa mid baa dhergad oo mid baa qaday dhowr ayaamood mid baa dhagalo mid baa aan maqlaynin dhawaaqa yeedhmada mid baa irbad dhuubanka gelinayo mid bay dhaayuhu daboolmeen dhalintii wadankii dhulkii hooyow dhibaato adduun dhammaan maysay haddii la isku dhaafo dheeliga dharaarba nin baa dhabada yaal midhkaasaa kiciyey inamadaasi oo ay ku bixiyeen mag la yidhaahdo magtii dhalinta sportska ee Somaliland gabagabadiina waxaa munaasabada wareejinta magta soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka xidhiidhka kubadda cagta oo u mahad celiyay guddidii soo ururisay qaadhaanka magta iyo garab istaaga iyo taageerista ay muujiyeen bahda ciyaaruhu waxaanu yidhi anagoo ku hadlaya afka xidhiidhka kubadda cagta oo dhan inaan u mahadnaqno guddidaas habeenii maalin baa u soo jeeday habeenii maalin baa u seexan weyday sidii ay hawshaasi iska xil saari lahaayeen sidii hawshaasi ay hawshaasi u dhammaystiri lahaayeen waxaan kaloo iyagu u mahadnaqaynaa odayaasha beesha uu ka soo jeeda marxuumkaasi oon u mahadnaqayno aad iyo aad u mahadsantay saakan waxay ku dhammaatay si qurux badan oo magtii lala kala wareegay mar walbana waanu garab taagnayn xoog iyo xiniyaba hawshaasi waanan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddidii hawshaasi ku jirtay